kumanaan baa u shahiiday kumanaan baa ciidda laga hoos mariyey dad baa naf iyo dunyaba ku waayey rag waxaa jiray waxa weeyaan jeeloogaday ku jiray oo markay soo baxeen ehelkoodii oo xabad aan ka joogin ayna imanin dhibaatadii la soo mariyey ee tiibeela dadkan soo marisay la ogaa siday ahayd soo wax fantima taana lama inkirayo iyo waliba axmaaro laftigooda wayna soo marisay abasinia taana wax la iska qarinaya ma marka waxa weeyaan in maanta xitaa dadkii dalkan iyo dalkanba u soo halgamay war iminka maxay muxuu ahaayey Masar Mandela ninkii muxuu ahaayey South Africa waxa weeyaan imisoo xidhnaa 29 sano ay jeel ku jiray soo wax fantan ma waa shakhsigii adduunka ugu maartay jeelka badheeraabuha soo wax fantan ma cimrigiisa dhan nasbu jeelka cunay maanta taaladiisu meel walba ka dhisan tahay Afrika ka dhisan tahay Aasiya ka dhisan tahay Mareykan ka dhisan meel walba ka dhisan tahay inta muxuu kala dagaalamay cunsuriyada iyo jinnacaybka wuxuu kala dagaalamay dadka madmadow in la yeesho dadka madmadow in waxba loo ogolayn soo wax fatima waxa weeye way ogeydeen 1900 iyo maxay ahayd 71 bal ansixiyo waxaan maartay muxuu ahaa waad ogeyd 1991 meed baa maartay arigaas maartay laga noqday xorriyad la siiyay wax yar buu madaxweyne baa ahaa South Africa wada kadib waa ka dhintay marka waxa weeyaan inta wuxuu ka dagaalamay waxay ahayd isagu dhibaatada uu soo maray aabihii uu soo maray jiilkii ka horreeyay way soo mareen bal in ay kuwa isagu dhalay iyo kuwa dhali doonaan iyo dadka madmadoobay bal inay xorriyad iyo sinaan helaan si dadka caadka oo kale cunsuriyada iyo nacaybka iyo faquuqa iyo waxa weeyaan cadaalad darrada dadka madmadoobay laga xidhayay ee waxa weeyaan Mareykan iyo Yurub loo soo iyo Faransiiska loo soo safrin jiray oo lugaha laga xidho doomaha lagu soo qaadi jiray wuu ka dhigay in dad noqdaan marka inaga kuwa kaliita oo xawashi ah oo hilibka ceedin cuna oo doofaarka cuna baa waxa weeyaan hadduu rabbi xukma hayoy in haysta kamana hadli karno dhibaato aad u xun weey inaa cagjar maalin walba wuxuu ilaahay ama kuwa afka u heeliya ama kuwa waxa weeyaan qabyaalada ku difaacaya maxay yiraahdaan waxay maalin walba ay yiraahdaan ya waa dadku waxay u xiisayaan TPLF dhibaato TPLF soo marisay war waxa weeyaan dalkan iyo dadkan axmaarana haysta xabashi bayna haysta waa abasinia waa reexay la salaasi waa reer mililikh waa reex mangista xayla maryan waa reer maxay ahayd mala zanaawi waa reer waxa weeyaan muxuu ahaayey tadase waa reer waxa weeyaan muxuu ahaayey abi axmed waxba inagama gelin waa the same rule qaybi oo qadiba lagu xukumaa dal waxaynu nahay dhibaatadaasi haysteen nahay waxa weeyaan imika dadka agoonta ee jajabka ee liita waxay ahayd maanta taalo in loo dhiso hadda halkan waxaan ku arkay gabdha masaakiin oo kaalida cashan kare maasaa laga guray qaar maskaxdoodu bedelantay oo ilaa xiskoodu joogin qaar waxaa jira rag iyo naagaba lugahoodu xitaa toosi kareenin soo xabantama Mustafa Cagjar iyo dawladdan Itoobiya ee waxa weeyaan meesha ka dhisan ee waxa weeye saanta ina saaran haragal madoweyna saaran ee waxa weeye ilaahay ina dul dhigay waxa weeye hadduu rabbi xukma hayoy bay hoos joogaan hadda waa ogtihi 2000 iyo hadduu rabbi xukma hayo aad iyo aad baan ku salaamay saaxiibkii qaade guulayso saaxiib aad baan ku salaamay Yuusuf Axmed Maxamed sii sheergalay saaxiibka sii gaarsiin saaxiib waxa weeyaan imika 2018 bay ahayd maxaa ka soo rogay 2018 19 20 22 ina ayta 5 sano jooga 5 sano iyo waliba bilooyin buu jooga soo wax faantima laano isbedelku wuxuu dhacay bishii wuxuu dhacay mayna lixaad مسافرات بيت وعجوا شان سنة يسياد وشوا سواء فانتما وح الله وح وقبتي بالذكي ذلك النف يمال أسوي وما أنت يقول كفر ليه ويقول كرسي وما أنت كفر ليه يا كيني سواء فانتما يسبدل كيسقوا وحطر يرهلكوا أو حوله بالآدمية ضعية عنية قرية كنسانية dad kale oo Soomaalida kale u dhiibanaya maxay ahayd baawur aan ku socda su'aal Fatima dad masaakiina oo wax ila baabili iyo haduu rabbi xukma hayoy muxuu ahaay gobolka city ka soo qaxay ba qollaji qoxunti ku
dal baa dadkoodii ay u dhasheen oo Soomaaliya qoxunti ku ah Soomaali fantima oo wax Allah waxaan loo qabtaa jirin xagee caalamka ku aragtay dad bilaadhum naasixiin aan bilaadhum ya عرض الناسحين على بلادهم الناس التوطينيين أو الأصليين ناسحين على بلادهم تذكي وطن كان إسكالها the people of original he's the some country he's used the refugee he's refugee سؤال فانتما dadkii dalkan u dhashay ee waxa weeyaan iska lahaa bay qoxunti ku noqonayaan oo maanta waxa weeyaan sicir bararka سامي سومالي ستيت أما سومالي ستيت أما هذا سومالي قلب سامي وأدونك والله مدحين لأنه إثيوبيا ويكدوا أنت صوماليا ويكدوا أنت جيبوتي هدي إنه إغنو الدولة لها شاركة لا أما كل جن هدي إنه إغنو رميد معه إمك السودان عاشور لقى مقاو شخص والبو حضانو سو قلقا حضانو كان سكرا وحالقيا مركو مريا ماشا مريا مارتي اي فينانسها سو تقانان اما قيبتنا عاشورها محوها تولكا اما محايا هيدي اكسبوركا اما امبوركا قف مركو عشوكا سو قلي بالنسبة واح يربا لغا قادا او قفكو دريمين لكن إثيوبيا هدان ما انت انو قاريقا وتلدقو وان كده تشيه بربرا عاشورها با لغا قاديا قاريقا وان سكا ولان كلا محايا هيدي صوماليا ودان سوال فانتا بوتلانا تاقو اما ما تاقو محايا هيدي دلالكا اللي كلا قوي اما صوماليا تاقو اما تاقو محايا هيدي كسمايو دا واح وي قاريقا ان وطو واح وي عاشور تسيبا لغا قاديا مردنا وعلو تاريخ كاس وحالقيا والوصل كدبنا جديد وحي لغا قاو إثيوبيا قاريقا هداد كينساتو قدد بريس هداد سوقتو كينساتو هداد سويستا دركا آد وطيه بوصلا بالغا قاديا واللي والعق بالغا قاديا وقناح حاجات كو أرتي وقوميسيكي ناسسميكي وقوميسيكي وحويان هدو ربي حكمها يو كاليترسكاها وقوميسيكي محو هاي سين سوفيات كو كلا هاي وحويان محوها هولي هنتولاك سمعت متى ووحا لو ليهي هدي شيء درسيتو درك waa inay ka dul xirtaa darka waa inay isku mid noqdaan darka waa inay maartay toolnaadaan darka xageed caalamka ku artay abal meel walba China adduunka ugu cusub baa ugu digtaa toorisan oo shiiciya bal soo eeg ruushkii baa kana soo eeg sumcad madinma ma waxba ma sameyn kartid laano midda kale ma wadan imika China wadan wax soo saar leh waa wadan wax soo saar leh dhaqaale leh ugu heer sareysan economy maxay society waa first waa البلاد اقتصاد اعلى وهو waa secondary سؤال فانتما marka laga reebo galbeedka سؤال فانتما ruushku wax soo saara waa dalka wax soo saarka faraha badan way shuciyaha noqdo iyaga wax soo saar warshaday leeyihiin inna ma baahna laakiin Ethiopia maxay soo saartaa ضافي soo saartaa ضافي دقيق canjeero la qaso lagu qaso oo laga sameeyo wax leeyahay canjeero wati bay soo saaraan حاجة اللي جيا عن شرودي حاجة اللي جيا عالمك حاجة اللي جيا يبسدا سواء فانتما عن شرودي إنها بيال بربع ما بصوب بحضرة سواء فانتما وهي هاي الضلكن معها وحلا سوق جريا معها الله شقيستا وحاجي والله جا قادني حولها يالو ليه في ناسا كقبتي وتهريب وروح أنا أسكري ماشي وأفريقيا ودك يدلك بين دقناهي وحاجة سوي بسدي معي شارك تروح معقولة كي قاضي حتى يحتاج عشور إنسان واحد معقولة كيش كي قاضي كاريغان سوي بسنيو ألاتا سوي بسنيو بلاشان سوي بسنيو أنا نما نقانا كان اللي كيجي صاحبنا أو بالله بقول كل دولار بك جوتي ألعابها وعوتي بالغيقات أو مباشرة الله وقاتي أو وحويا ولي أنا وح على الصومالي الله يقاضي ورد وح اللي جيا حرف درال بالجيا أحمارة أي عنتها العكس صومالي اللي قرري صراحة بتما Soomaalidu degan yihiin baba waa khaliijku waa Sacuudi Carabiga oo soo taariibad soo mid hadal maanta xagga u dhaafta jigjiga shaaraci oo seexanayaan shaaraci ku xaarayaan qaar kubriyada hoos jiro 3 jeer 4 jeer 5 jeer bariqada baa jaarisaba oo kubriyada hoos seexda oo wax magaalada faygeeda gidaarada seexda baaje xagee caalamka lagu arkay dad saa u nool oo hadana waa dawladooda waa dawlad dictatorial waxa weeyaan waa kaliya talis dalka iyo dadka shacabka midna kama naxayso soo fadilma marka waxa weeyaan taa waxaan uga wadaa qaar baa maanta baawur ka qabsaday nin baa baawur laga qabsaday miskiina oo alaab u lahaa la yidhi waa kontrabaan baad ku keentay oo lagala wareegay oo khasaaray 300 400 kun oo dollar khasaaray waayahay qurba joogta yimaadana shaqaystaan baa la leeyahay ma Ethiopia bay u shaqeeyaan wixii lacag ha odhan la siiya
haddii maanta aadan si xore u shaqaysanayn oo xitaa haddii shayga la canshuurayo wax macquula baa laga qaadaa suuca ama yurub tag ama maraykan tag qofka waxaa laga qaadaa wax maarata exporta oo qaybta maarata tuulka ay yidhahdaan muxuu ahaa jamaariga ee customka waxbay kaa qaadayaan laakiin wax macquula baad bixinaysaa suuca mantima laakiin in lagu yidhaahdo hadduu rabbi xukma hayo wax allaala wixii haystiba laga qaadaya ma waxa ilaahay baan ku dhaartay in qabo wax dad qabto waxa qabto dalka ku nool Soomaaliya dalka ku nool ma wax la aqbali karaa talabaad hadaan u soo noqdo imaka gabagabadii agoonta iyo jajabka dalkan iyo dadka naf iyo maalba u soo waayay ee ehelkoodu ama nin ha noqdo ama naag ha noqoto u soo halgamay ama halganta ha noqdo ama halgama ha noqdo dalka u soo halgamay maanta miyaynan ahayn in taalo looga dhiso madaxtooyada Jigjiga ama buurta maanta inta loo dhiso leeyahay dadkani waa dalkii dadka u soo halgamay ina cagshar dhiigii dalka ayuu ku fadhiyaa jabhadda xoreynta ogaadeenaya waxa weeyaan naf iyo maal baa loo soo waayay isagoo walaalkii nin dawladda u shaqeynayay waa dhexda gaari laga tuuray nin maanta qorisina muuna ahayn maalin walba sheega meel walba ka sheega walaalkiisa toorida lagu dhuftay ee waxa weeyaan ay isku dhufteen maxay laba qof isku dhacay ama family isku dhacay ay ku dhufteen ama isaga loo dilay ayuu meel walba ka sheega dad baa hadaba naf iyo maal ba u soo waayeen reer u harin oo gabadha shaati aan u harin rag baa ragaasi caruur bay ka tageen ehel bay ka tageen suuca fatima waxba looma samaynin wax loo qabtay ma jiro suuca fatima hadda imika adhisawa dad ta jabaa jiray loo yaray qabsadeen muhaamiyay qabsadeen waxa weeyaan safaaradii Ireland bay galeen tii Ingiriiska ay galeen tii Mareykanka ay galeen tii Australia ay galeen tii Norwegian ay galeen tii Swedish Scandinavian ka dhanbe Swedishka Finlandiska waxaan isu wadagay Iceland Denmark waxa weeyaan wixii xaq iyo xuquuq waxaan u lahayn baan u baahanahay sababtoo markii aanu iimayna jabhadda xoreynta ogaadeenaya jabhaddu waxay ahayd international bay ahayd jabhaddu wax weyn la aqoonsan yahay ilaa al'aan ka shaqeysa dacwadeedii waxay socdaan suucad maadima dadka jajabka ah wax allaala wax loo qabtay ma jiro ina cagjar dhowr dhan oo reerkooda buu lacagta ugu dhiibaa kuwa la yiraahdo waxay taageersan yihiin jabhadii rasmi jabhadii maartay xaq darka bay wali wax weey duxaan maadiba mas'uulka waxa loo diiday waxa loo diiday mar waa kii la isqabsaday ee la yiri jarmalku yiri 650 kun oo waxaan yuan bixinaya hal loo qaybiyo dawladda Itoobiya waxa ma siinay ilaa Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi maado yimaado leeyli ma dhiibayo gudoomiyaha jabhadda xoreynta ogaadeen waa Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi maadi ninka uu baa loo dhiibaya lagu wareejinaya suuca fantilma qof kale hadduu rabbi xukmaayo wax kale u dhiibanaya dadka iyo dalka ninkaas amata suuca fantilma mudday jiitamaysi hadda gaaraysa 2 sano 3 sano 4 sano ay jiitamaysi hadda waxa dhacday dadkii dalkan iyo dadka madad fara badan waxa jajabaa jira qaar kaadida xajaj karin baa jira qaar socon karin baa jira qaar waxa jira lugihiiba meyd noqdeen oo baabeen suuca fatima oo dalkii waxa way raxmad ilaahay ka keenaa teema wada gaadho ninkii lahaa maqan ama dad ku tiirsan dad maartay adag ku tiirsanaa ila dadku isku mid maaha nin walba qabiil saboola iyo qabiil waxa isu ka dhashay dadkii looyaanka ahaa baaba suuca fatima waxa way guriyaha hadda waxa laga dhisay bayaxo laga dhisay oo loo dhisay dhalinyarada jajabka oo loo dhisay hooyooyinka maartay carruurta agoonta haysta aabaya ashacta agoonta haysta dadkoodii la laayay ee waxa weeyaan baahan ee u baahan dayactiro guriyuhu uu diiday Mustafa Cashir baa u diiday oo yiri axmaaraan dajinayaan ku beeraya meesha suuca mad axmaaraan madila dajinayaan bada xoreynta ogaadeenaya axmaar ayaan dajinaya guriyaha bayaxo ku yaal oo siinaya bur uuna diiday inuu maartay jabhadda xoreynta ogaadeenaya ay degaan سؤال شرقة إلى ورشرقة إنك أكو شلو كوش صاحب سير شرقة أصحابك لك سير قال سيلابن كولا يوتيوب صاحب كوش شرقة وسعيبك وعيالها نيمك جايين جنيفا كونفيشيون إيه أنا جايين إن معايا هذه محكمة هيك إيه أنا جايين إن معايا برلمان بروسلس بيكمل تهاي أنا كرا الله ينام هو هاي أنطونيو توسم أنا كرا هذا الأشياء اللي دلك بوح وين واحد وقتها سواء بدمه شرمان جيورج شوم بنو شيء إن نيجا يستميل جيور بنو شيء محكمة نيجا يستبنو شيء سواء فانتين معها جيورج بنو شيء ونعرض نكرار لنا دلك بنحلو قنوي سفارة هنا والله قلي وميل والبر والله دقي مصطفى أكثر دلك بكيوسوا هالجمي يوصوا باي وحبا منو قبنين dad aan waxba ahayn oo dalka u soo halgamay buu ku xarqinaya waxa weeyaan ujeedooyin kale ayuu Mustafa Cashir maartay oo qoodinaya
dalkan iyo dadkii u soo halgamay ee naf iyo maalba u soo huray waxa weeye hangool dheer oo xaar rabo iskaga qabtay soo waxaad fahantay ma oo uu ku fogeynayo soo waxaad fahantay ma taasa la iskama aqbalayo shuruudihii bay ka mid ahayd dadkii laga keenay Eritrea ee jajabka ahaa ee ciidanka ah ee wax walba lahaa in wax loo qabto oo iyaga mudnaanta la siiyo they prioritize the give me this some arm he's defeating from the Ethiopia he's the ONLF organization or muxuu in la siiyo priority in la siiyo jabada culato ogaadeen عادل أولويات وأفضليات جبهة التحرير أوغادين يحارب بين الدولة الإثيوبية وجبهة التحرير أوغادين فترة 30 سنة في منهم معوقين في منهم ماتوا زوجاتهم وزوجانهم وهم طالبين الحق وحقوقهم ما يحصلوهم أبدا عرفت كيف ما يحصلوهم أبدا علي وانا ugu sheegnay wax walba waan ugu sheegnay caalamka jasiirada tar waan ka hadlay wadakayga jasiirada oo ka hadlay korneelka caskayg macay jirada media anoo ka hadlay jasiira subax fatima waxa weeyaan jabada xoreynta hogaaminaya ee dadka masaakiinta ee agoonta wayna hooyooyinka dhibaataysan maanta waa ogtihiin kiiska daqiiqda kiiska bariiska cid goosan kartaa ma jirto subax fatima cid goosan kartaa ee haba yaraatay ama iibsan kartaa ما جرتو سواء فهمت ما واني شريدي اخي سعر البركه ما كتاغن maxay ahayday Somali State ama ka taagan maxay ahayday gobolkan muxuu Somali galbeed waani sheegi war hadii Mustafa Cashir maanta uu isagu lacag qaato oo ay wax weey seediyaashi ehelkiisi cid walba oo ugu dhaweyd ay dheregsan tahay oo maanta badhaayda hayaan yaa iyo wax weyn afar qurba jooga oo tuugo beenaaliyaal oo Mustafa Cashir maarta u neekinayo oo lugta soo taagay oo bangiyada lacag laga sii leeyahay banka dhexe Itoobiya laga soo qaaday imisa u baahan tahay waxaan u baahanahay 6 milyan u saxeex waa mid la yiraahdo Maxamed Dheere la yiraahdo iyo mid la dhaho Maxamed Xuseen Cali oo waxa weeyaan isagoo isku jifayeen baa Mareykanka ka yimid markaas intuu geeyay maxay ahayd meeshan u dhaweey dhagaxle intuu geeyay buu beer ka sii uu ku sawirey lacagta xagga laga keenay lacagta Itoobiya laga qaaday lacagta Itoobiya ayaa laga qaaday oo la siiyay oo la yiri wax weey mashaariic baa lagu sameeynaya way qurba joog lacagta yaa bixiya Itoobiya bixisa xagee ka keenay lacagta dadkii masaakiinta ahaa dalka u dhashay gaajo u dhimanayaan reero waxa jira aan dabka loo shidin baa jira wallahi billahi tallahi hooyooyin aan dabka loo shidin baa jira ilaahay igu ogeey hadda imika ku yaraatay waxay jiraan aniga la shaqeeyo jarribidii la shaqeeyo oo Nasruddin la dhaho gal YouTube-kiisa wallahi lacagtan meelaha uga soo ururnaan oo naga u geynaba soo fahantima hooyooyin waxa jira xitaa maartii aan guriga kalees ka bixin karin qaar waxa jireen dhala qaar waxa dadka xitaa shacabka ahaa ee xitaa dadka masaakiinta ay gararatada ahaa hal bakeeri kiis sokor ma siibsan kara miyaan xaraam han ilaahay baa idinku dhaari abaarta maaniga kariib ku leeyahay war dalka iyo dadka yaa mas'uulka ya dalka iyo dadka yaa mas'uulka yaa laga xisaabtami karaa maxaa dadka hor jooga ugu tahay war dadkan lagu malaha ma xukumi kartid waxa weeyaan dadka xukun laakiin dadka cadaalad u sameeyo ina cagjarow waxa weeyaan ama kursigan iska banne waad ku fashilantay 5 sano iyo barbaad joogtaa dhibaato aad u fara badan baa meesha jirta jabhadii xoreynta ogaadeen iyo adoo xaqi xuquuqooda way raasideen safaaradihii bay galeen hay'adihii international caalamiga ah bay la xidhiidheen waxa weeyaan annagu naftooda ka riixinaa meel baanu geynina oo waanu halgamaynaa wax walba aanu sameeynaa dhalinyarta OSU baa israacaysa maartay ninkii arrin kala wadeen Mustafa Cashir la socon looma baahna soo badima dhalinyarta OSU waa u kacday diyaar u ah iyagu is kharash gareynaya meel bana tagay soo badima oo wax weyn xaq iyo cadaalad bala sameeya icdulu baalay ma fahanti